السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan sii wadaynaa maanta insha Allah talooyinkii caafimadeed ee ku saabsan bisha Ramadaan. Maalin waxaan ka hadalnay caafimaadka uu soonka u leeyahay jirka, waxyaalaha uu ka faa'iidayo jirka iyo suu isku bedelayo. Maanta waxaan ka hadli doonaa cudurkan coronavirus oo hadda socdo iyo arrimaha ku saabsan oo soonka la xiriiro. Qofka jira ma soomi karaa? Ma loo ogol yahay? Yani dad badan waxay isweydiinayaan hadda oo kaleeto maadaama jiro viruskan jiro ama jirka difaaca hoos u dhigaa oo ma iska dayaa soonka. Waxyaalahaas insha Allah arabaa inaan ka jawaabo. Midda koowaad, soonka waxyaalaha uu sameynayo jirka maxaa ka mid ah? Difaaca jirka uu adkeynaa, immune system wax la dhaho ama vastus-tuskika waa aad u adkeynaya oo qofku waxa waaye maadaama oo maalinta waxaan soo sheegnay caloosha ama dheefshiidka, maskaxda, wadnaha, waxaas dhan wuxuu ka gaarsiinayo, wuxuu ka geysanayo. Sidoo kale markaan ka hadalno difaaca jirkana aad u kaleeto u adkeynaya maadaama qashinkii wixii dhan laga saaray. Hormonaadka oo tusaale ahaan growth hormone, kasbu hormoonida ay dhahaan, yani midka waxa waaye hormoonska oo qofka kobcinaya, murqiisa kobcinaya. Ilmaha yarna aad ugu badan yahay, markuu qofka soo weynaadana wuu daciifaya, laakiin wuu yaraanaya kaleeto hormoonskaas hadduusan ka warqabin. Jirka markas ka warqabo, markasta uu soonka badsado wuu ku badan yahay, wuu ku badnaanaya. Markii hormonaadkaasna kor u kacaan, difaaca jirkana kor u kacaya. Marka qof hadduu rabo inuu raadiyo ka hortaga yani coronaviruska ama bacteria ka hortageeda, inuu badsado soonka. Taas waxa waaye waxyaalaha ugu hortegi karo coronavirus iyo waxyaalaha kaleeto, cudurrada kaleeto oo faafo. Taas mid waaye. Waxaan hadda ka hadalno inkastoo muddo in badan laga hadlay calaamadaha qofka maxaa waaye uu isku arko coronaviruska. Coronavirus ula socotaan waxa waaye horta hore nooc ka mid ah waxa waaye qabiil dhan ama bah dhan oo cudurro oo neef mareenka ku dhaco waaye. oo mar hore waxaa jira kaleeto SARS iyo MERS iyo waa soo mareen. haddeer marka waxaa waaye coronavirus ma ahan mid cusub ma ahan, laakiin kan haddeer mid cusub oo nooc cusub ka mid ah. Laakiin coronavirus ahaantiisa mar hore waa loo garanaya. Calaamadaha marka qofka markuu isku arko waxa waaye qofka isku arko influenza mise hergebka oo waqtiga barafka oo kaleeto, calaamadahaas isku arkaa qofka. Haddii noqoto qufac, haddii noqoto madax xanuun, qandho, murqa xanuun, lafa xanuun, intaas dhan uu isku arkaya. Waxyaalaha kale ka mid ah waxaa calaamadaha oo lagu arko waxa waaye qofka waxaa ka tegaayo urka iyo dhadhanka ka tegaya, wuu dareemaya taas kaleeto. Taasna way dhici kartaa yani qofkaas oo hergebka caadiga xataa mise influenza wuu ka tegi kartaa, laakiin corona waxa waaye wax badanaa lagu arkaa arrintaas. Waxyaalaha kale ka mid ah waxaa ka mid ah calaamadaha corona waxa waaye in oo qofka oo calool xanuun oo kaleeto ama shuban isku arko. Marka waxa waaye wax oo la socdo qaybta caloosha, yani nooc kaleeto oireedka caloosha ama waxyaalaha ku saabsan qaybtan caloosha uu qofka ka xanuunsanayo. Marka intaas waa guud ahaan markii oo qofka uu ka dareemi karo calaamadaha qofka isku arki karo. Hadda hal mar kusoo celiyo waxaan dhahnay waxa waaye qandho, qufac, murqa xanuun, neefta oo ku dhegto, neefta oo qabato, murqa xanuun, lafa xanuun iyo sidoo kaleeto ripple waxa loo yaqaan shubanka, caloosha ku xanuunto, kuwaas waa ku jiraan intaas. Marka dadka badankoodna waxa waaye wuxuu ku dhacdaa si khafiif ah. Dad waxaa jira marka riski ah oo dadka yani cudurro oo badan leh sida cudurrada wadnaha oo kaleeto, verenpinatouti, diabetiska, waxaa ka mid ah kaleeto cudurradan oo yani qofka hadduu immuunkiisa, difaaca jirkiisa hadduu hoos u dhacay oo daaweyn isticmaalayo culus oo kaleeto. Tusaale ahaan qof kansar oo kaleeto, qof kansar hadduu ku dhacay, daaweyn wuxuu isticmaalaa culus oo jirka dilayo, yani unugyada oo caafimaadka unugyada oo kansarka uu dilaa.
marka immuunkiisa hoos u dhacsan oo difaaciisa jirka marka dhaqsiba wax kasto yani cudur kastaba dhaqso u qaadi kara corona oo kamid tahay marka dadkaas waxa la dhahaa riski rima dadka oo u nugul inay qaadaan laakiin sida badanka dadka waxa waaye si fudud oo hergib camal u qabanaya waana ka tegaya dadka sida ugu badan khatarta ugu badan waxa waaye sanbabaha ay soo gaarayaan sidee marka qofku ugu hortegi karaa yani inuu gacmaha markasta uu ka warqabo inuu dhaqo gacmaha dhaqo inuu ku tataaban gacmaha iska ilaaliyo tataabashada afka dhegaha afka iyo indhaha iyo meelahaas kale inuu tataaban maadaama meelaha waxa waaye uu dhaqsi ka qaadi karo marka markastaba inuu kaleeto ka warqabo waxyaalaha oo marka kaleeto ilaah inaan ku mahadin ay tahayba waxaa weysida maadaama qofka muslimka uu weysaysanayo maanta dhan weysaysanayo oo ugu yaraan 5 mar 3 mar maalintii inuu weysaysanayo maanta dhan buu meeraya yani wuu dhaqaya gacmihii uu dhaqaya wajigu dhaqaya sankana biyo gelinaya uu sandaarsi u sameynaya marka waxa waayba sunno inuu qofka markasta cibaado ka dhigto inuu u weysaysto markuu hindisayo uu qufacayo sida saxda inuu u qufaco oo haddii uu ama inuu garabka ku qufaco saasoo kaleeto ama ku hindiso saas inuu sameeyo jidin amalena saas ama hadduu waraaqada oo tissue waxyaalahaas oo waraaqadaha lagu hindiso kuwaasoo kaleeto inuu ku hindiso gacanta kale inuu isku ilaaliyo inuu ku hindiso maadaama gacanta hadhowna uu isticmaalaya marka markuu gacanta ku hindiso hadhowna meesha computer ku taabanaya ama telefoon ku taabanaya markuu sii gudbinaya yani wixii oo kasoo baxay oo jirkiis kasoo baxay uu sii gudbinaya marka gacanta saasaa loo diiday marka meel dhinac markii oo garabka kale markaa ku qufacay ku hindistid waxa waaye cabaar yani germska waxa cabaar meesha oolayaan markaasna waa ka baxayaan oo waa dhimanayaan inuu qofka iska ilaaliyo qof qufacayo oo hergebahay saasoo kaleeto 1 mitir 2 mitir oo kaleeto 1 mitir ilaa 2 mitir oo kaleeto in uu qofka iska uu ka fogaado inuusan booqanin guryaha kaleeto hadda marka mida aad loo muhiim tahay in la xasuusto waxa waaye ilaalistii oo la sameynayo dowlad hadeer way furtay oo yani dukaamada waxaa la furayaa kirastii waa la furayaa waxaa la furaa iskoolada la furayaa marka inuu qofka isdhihin hadeer meel kasta way furan tahay marka caadi noqotay meel oo muhiim mise baahi haddii jirin inuusan iskaga bixin oo iska aadin inuu waxaas iska ilaaliyo oo isdhihin hadda meel kasta waa la furay bis waa marka sidaa raa u dhaqma maaha taas waxa waaye in meeshii oo muhiim tahay haddii iskool noqoto haddii noqoto shaqo haddii noqoto meel oo yani dad badan ku badnayn si kastaba weli waa la diiday yani ilaa yani waxaa jira hadeer waa 10 ka badan waa la ogolaya laakiin si kastaba weli in la xadido mar kastaba oo si oo macno daro meel loo aadin ilmahana in laga warqabo maadaama ilmaha gudbiska ay gudbinayaan ay yar tahay laakiin saas tahay in oo mar kastaba laga warqabo ilmaha marka waxa waaye inuusan booqanin guryaha dadka kaleeto inuusan aadin meel oo kaleeto oo faa'iido ugu jirin mise baahi jirin danta haddii keeni hadduu marka qofku ku dhaco corona hadduu ku dhaco calaamadaha waan sheegnay marka qofku ma hubsan weli ilaan corona marna waxay noqon kartaa yani isla calaamadihii waxa waa hergebka caadiina calaamada caadi u noqon karaa ama corona noqon karaa hadduu isku arka marka calaamadaha oo qandhada aad u daran tahay 38.5 ama 39 ma ka degayso hadduu isticmaalo xataa Panadol ama Buran u qaate neeftana ku adkaato markuu neefsanayna aad yani u adag tahay markaas kale waxa waa inuu la xiriiro service asamaga oo ugu dhow inuu la xiriiro taasa ugu horeyso meesha haddii tahay waqtiga oo furan waqtiga haddii furan tahay Helsinki oo kale meel waxa jirta gaar oo la wici karo waqtiyada kale ay xiran tahayna meeshaan service asamayaasha xiran yihiin meel markay xiran yihiin waxaa lagu marka 116 taas waxa waa 24 hour yani 24 saaco way furan tahay qof markasta uu wici kara haddii corona hayso mise haddii ba hayninba iyakaa marka ku dhahayo ku weydiina calaamada ku weydiinayo markaasna ku hagaaya meesha aad lahayd mise maxaa samayn lahayd mise wixii oo loo baahan yahay markaas haddii oo marka degdega aad uga baahan tahay oo aad sugi karin oo neefta oo kugu dhegto zaa'id oo kaleeto qandhada kasii darayso oo aad sugi karinba xataa taas markaasna waa inaa wacid 112 oo ambulanceka caadiga oo normal oo la waco
marka midda koowaad waxaa waa meesha tala bixinta viruska corona inaad kaato magaalo kasta waxay leedahay meel la waco tervis asmada waa weydiin kartaa toos u wici kartaa tervis kan kugu dhow haddii marka waqtiga xiran tahayna oo 4 kadib waxaa wacaysaa numberkan oo 116 117 haddii marka aad u daran tahayna waxaa wacay ambulance wacaysa marka calaamadaha marka labadan calaamada aad ugu daran yani qadho aad u daran yani 39 haddii gaarto kaleeto qofka inuu bilaabo inuu jareeyo taasoo kaleeto 38.5 oo maanta si socod yani dhowr maalin ku haysay ama neefta kugu dhigta labadoo haddii isku darsamaana waa kasii daran tahay inuu qofka degdeg markaas uu raadsado caawimaad inuu raadsado uu tala bixin inuu raadsado haddaa marka usoo laabano su-aashii ahayd qofka coronavirus haya ma soomi karaa waxay ku xiran tahay intuu maraya yani qofkan waxaan soo sheegnay dad waxaa jira hotor u nugul qofka ugu nugul oo kaleeto hadduu ku dhaco kaleeto wuu ka daran yahay wuu ka darnaan karaa yani qof oo sokor ama wadna xanuun ama sanbabaha xanuun hadduu coronavirus ku dhaco wuu kasii darnaana karaa qasma inuu ka darnaado laakiin wuu u nugul yihiin marka qofkaasoo kaleeto qof si noocaasoo kale miya mis qof waxaa waaye caafimaad qabo oo sidiis kaleeto oo dareemayo ufac yar dareemis madax xanuun yar dareeme marka qof kasta waxaa waaye markii la dhahayo qofkan ma soomi karaa mise ma soomi karo guud ahaan waxaa la fiirinayaa qofaa loo fiirinaya qofku marka hadduu yahay hadduu ka baxo kaleeto wax yar oo hirgab yar hadduu dareemo qandha hadduu dareemo madax xanuun yar hadduu dareemo wuxuu la dhaqmayaa sida cudurrada caadiga oo kaleeto qof hadduu uu madax xanuun caadi oo kaleeto qofka hadduu qabto hadduu la soomi karo wuu la sooma haddii madax xanuunka uu ka daro oo aad u daran yahay qufaca kasii daraya maanta dhan markaasna inuu afuro waayo haddii oo coronavirus oo kaleeto qofkan lagu caddeeyey oo dhacaankii laga qaaday lagu caddeeyey coronavirus lagu caddeeyey hadduu ka cabsada marka inuu kasii darto markaas waxaa u fiican inuu iska afuro uuna dib ka qalleeyo soonka lana tashto dhakhaatiirta la tashto taasaa ugu fiican oo dhakhtar sii weydiiyo ma samayn karaa badanaa way garanayaan wax un way ka garanaa hadar oo waxaan sameyn waxyaalaha sameyn waxaa kamid ah yani dhakhaatiirta finland waa u sheegnay yani calaamadaha iyo yani qofka la ogol yahay saasoo kaleeto waan siinay kaleeto dhakhaatiirta finishka xataa arrimaha way la socdaan marka iska weydii dhakhtarkaada weydii haddaad helin xataa dhakhtarkaada haddaa weydiin karin anakaa noo soo diri kartaa emailaa noo soo diri kartaa ama facebookana laga soo xiriiri kartaa wixii tala bixin caafimadeed waa diyaar u nahna insha allah waan iga soo jawaabaya wixii ku saabsanna arrimaha oo diinta oo kaleeto waxaa weydiin kartaa masaajidka kugu dhow masaajidka ku xiran tahay culummada joogta aa weydiin kartaa arrimahaasa jirto la tashado yani wa amru mshuura baynahum يعني قفك إنه تشتو ودتك لا تشتو آدو في عنته مركا حتى نسو أرند كسر عليه ولي قفك مسومي كرا قفك الجيران وحكو حرنته قفك نوعي واي هدو قفك كعب سنة إني كسي درتو أو كورونا فيروس كسي درو إنه أفرو وفي عن هدي تهلا وحير أو قفيف أو هير كبير هدو دريمو أما مدحنون أو قفيف ولسومي كرو إنه اسكسومو سيدو حواي قفك عادي أو يعني حنون ير أو دريمو haddii uu kasii daraayo madax xanuunka asagoo ahba qof oo normal oo dhalinyaro ah mise qof oo cudurrada kale taasi liitanay thyroidka sida la dhaho qofkaasna waa soomi karaa qofka marka haddii waxay ku xiranta marka marxaladda uu qofku ku jiro haddii marka oo la dhaho isbuuc ka hor ay ugu dhacday hadeerna waxaa waaye waa soo kabanhaya oo weli waxaa dareemaya daalaa dareemaya murqa xanuunaa dareemaya sidee kale waan iska fiicanahay markaas xataa qofku waa u bannaan tahay inuu afuro maadaama bogsiinada oo dib u dhigayso qofku markuu bogsanayo xanuunkii ka bogsanayo ay dib u dhigaysaa marka hadduu dareemayo tabaryara hadduu dareemayo calaamadahaas isku dareemayo inuu iska afuro u fiican uu markaasna biyo badan cabo maadaama jirka u baahan yahay biyo badan u baahan yahay oo qandhadii iyo dhibaatada soo gaartay awgeed waxaan kusoo celin lahaa arrintan weli haddii marka wax faahfaahin u baahan tahay waana la soo xiriiri kartaa anaka dhakhaatiirta waana soo diri kartaa PST dhakhtarkaada oo toos u la xiriiri kartaa oo weydiin kartaa tala bixina weydiin kartaa culummadana oo kaleeto meesha joogtid oo weydiin kartaa iyakana si oo iyakana ula tashadid qof oo garanayo oo arrimaha diinta ku saabsan si fiican u garanayo asagana waxaan kula talinaa in asagana weydiisid insha allah taasaa kusoo koobi lahaa marka qofka ma soomi karaa marka waa kana meesha intaan lagu soo xiriiri kartaa suwamen bista somalilaha karid gmail.com
ama Facebook kaleeto noogu soo xiriiri kartaa oo noo soo diri kartaa VST xaggaa noogu soo diri kartaa wixii marka su'aalona insha allah ama hoos kusoo qor ama xagga noolagu soo xiriir insha allah intaasaa kusoo koobi lahay ramadaan kariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu